maanta su'aal idin weydiinaa qaas ahaan lamaanaha isla joogay muddo 3 sano laga yaabo kuwa 2 sano inay soo galaan su'aasha ugu weyn oo idin weydiinaa waxay tahay goorma idin kugu dambeysay in aad wada sheekaysateen wada sheekaysiga sheegay macnihiisu waxay tahay wada sheekaysi mobilada ama mobilka oo aamusan yahay silent ama damis waxba ha ahaado laakiin muddo wada sheekaysateen sababtoo waxa wada ognahay mas'uuliyad badan ay imaanaya hadii Ilaahay ilmo keeno hooyada ilmaha ku jeesanay aabiin mas'uuliyadka ku jeesanay ka bacdi inta badan wax la iska wada hadlaayo ama laga wada hadlaayo waxay noqon doontaa waajibaad iyo dhibaato qoys ku soo kordhay iyo waxyaabahaas la mid ah intaas inta badan marka waxay sababtaa in yani hadaladii muhiimadii ama jaceelkii ee ka tira badato waajibaadkii marka waxay la tahay ama sida jirtaa waxay tahay in hadii la wada hadlo muddo nus saac telefoon la'aan lagu xalin karo waxyaabo badan so taas waa wixii xalka ahay laakiin su'aasha aramaad ina weydiyo waxay tahay ma dhacda ma jirta ma la xasuustaa ma santiin halkani waa xarunta Carefesol xaruntii ugu horeysay ee nooceeda ah ee lagula tacaalo dadka qabatiimay isticmaalka maandooriyaha lagana hirgeliyo Soomaaliya halkani ma aha xabsi ama goob lagu jirdilo dhibanaha ee waa goob uu ka helayo dib u kabasho dhameystiran waxaan sidoo kale u sameeynaa bukaanka wacyigelin nafeed tababarro xirfadeed la talin caafimaad iyo ka dhaqista qabitinka maandooriyaha Carefesol saaxiibka dhibanaha wixii faahfaahin waxaad nagala soo xiriiri kartaan telefoonada shaashada kaga muuqda